saddexaadna ay sharaf ku leedahay iritaanka iyo xaqiijinta iyo taageeridda iyo garab istaagga ay xukuumadda iyo madaxweyne cabdi xamar ay la garab taagan yihiin kana soo horjeedaan shakhsiyaadka afkaarta khaldan aaminsan ama la shaqeeya ururada argagixisada ee ka soo haray haraadihii ubo iyo nimanka kale ee SSI-da ah. arrintaasina waa mid cad oo markhaati cid walba ay ka tahay mowqifkooda in ay si midaysan oo wadajir ah ay uga soo horjeedaan shakhsiyaadka tirada yar ee ka midka ururada argagixisada ah, waxayna si cad oo buuxda ay uga markhaati kacayaan dhammaantood iyagoo odayaashii, dhallinyartii, haweenkii, aqoon-yahankii ka wada midaysan inuu meeshani ay ka jirto xukuumad hirgelinaysa horumarka cagaaran, cilib tiraysa saboolnimadii soo jireen yahay guud ahaan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. waa markii koowaad ee degmo ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay isugu yeedho jaaliyadda ballaaran ee ku nool North America dad intaa dhan iyaga oo maanta martiqaadkan iyo afurkan ay iska leeyihiin bahweynta reer Saar. waa markii koowaad ay dhacday. dhammaan waxaa halka ku sugan maamulkii jaaliyadda oo halkan waxaa fadhiya maamulkii xisbiga ugu horeeya Sultan Maxamed Bade, waxaa fadhida guurtidii odayaasha, waxaa fadhida ururadii dhalinyarta, waxaa fadhida bahweyntii markii sharaftan iska lahayd ee reer Sacad. haddaanu nahay maamulkii waxaanu ka markhaati kacaynaa arrimaha nabadgelyada iyo horumarka ka hana qaaday 8 sano ugu dambeysay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee ay fulisay xukuumaddu. arrintaa iyadaana waa mid North America laga taageersan yahay. shakhsiyaadka meelaha kale ku hadhayna iyaguna meelahooda waa loogu tegayaa sida maansoodha isu bedeshay meel walbana isu bedelaysaa. maansoodha waxay ahayd xarunta laga xukumay nabaddiidka, maantana waa xarunta nabadda weeyaan. Australiana safarka labaad waxaa iyadana aan ka rajeynayaa inay noqoto meesha lagu hoggaamin doono nabadda. waxaan aad u cambaaraynaynaa shakhsiyaadkii u dhashay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee soo raacay ururada nabaddiidka ah ee laga xukumo Oromiya ee daba afkaarta maaragtay lagu diidan yahay xasiloonida waddanka Itoobiya guud ahaantii